kadib markii la soo gabagabeeyey ismaandhaafkii siyaasadeed ee deegaanka ayaa waxaa dib ugu soo laabtay magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaanka madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar waxaana garoonka diyaaradaha ee Garadwilwal si diiran oo aad u sarreysay ugu soo dhaweeyay dhammaanba kaabineetka deegaanka shacabka deegaanka gaar ahaan bulshooyinka magaalada Jigjiga odayaal dhaqameedka culimooyinka dhalinyarada kooxaha fanka iyo suugaanta kooxaha baambiyada deegaanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan halkaasi oo shacabka iskugu yimid ay halku-dhigyo kala duwan ay ku soo dhaweynayeen madaxweynaha sida soo dhaweyn kadib waxa uu madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar oo waqti yar oo gaaban oo nasasho ku qaatay qolka khaaska ah ee garoonka diyaaradaha ee Garadwilwal kadib waxa uu madaxweynuhu waqti kale la qaatay shacabkii iskugu yimid garoonka diyaaradaha ee Garadwilwal ee iskugu soo baxay inay si diiran u soo dhaweeyaan madaxweynaha deegaanka kadibna madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa loo soo galbiyay xagga iyo qasriga madaxtooyada deegaanka waxaana wadada labadeeda geesood tubnaha laga soo bilaabo garoonka diyaaradaha Garadwilwal ilaa iyo qasriga madaxtooyada deegaanka shacabka qaybihiisa kala duwan oo halkaasi ku soo dhaweynaya madaxweynaha iyagoo wadada la taagnaa caleemo qoyan iyo calanka deegaanka kadib markii uu soo gaaray qasriga madaxtooyada deegaanka ayaa waxa uu halkaasi kula hadlay madaxweynuhu saxaafadda isagoo ay hareer taagnaayeen madaxweyne ku-xigeenka deegaanka mudane aadan faarax iyo marwe firdawse maxamed afayeen ku-xigeenka golaha xildhibaanada deegaanka waxaana madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar sheegay sida la socotaan tan iyo markii isbedelku ka hana qaaday deegaanka Soomaalida 5 bilood ka hor shacabku waxay muujinayeen taageero ballaaran oo dhinac walba ah iyo hooba ah hase ahaatee waxaa soo noqonayay arrimo caqabadooyin jiray oo la xidhiidhay in isbedelku si loo rabay uu hore ugu soconin kala aragti duwanaansho la xidhiidhay sidii maartay dib xisbiga loogu yeegleyn lahaa jirtay arrimahaas oo markii dambe keenay in maartay xogaa saxaafadda iyo ay galaan isku maartay kala hadal fara badan taas si wanaagsan inaan uga xaajoonno ayaa sabab u tagnay dhammaan wixii jirayna waa isku soo afgaranay waxaan hadda rajaynaynaa in si dhaqso ah maartay isbedelkii loo dardargeliyo oo ummadda looga faa'iideeyo si dadku ay maartay u dareemaan deganaansho siyaasadeed iyo mid amni oo xoog loo saaro dhanka horumarka kala aragti duwanaanshahaas jirtay waxaa dhex booday oo damacay inay ka faa'iideystaan shabakad hadaagii xukuumaddii hore iyo maartay dadkii tacadiga ku sameeyay shacabka iyo dadkii ka taajiray dhiiga shacabka oo weli si daba socda dhaqanadii xunxumaa ahaa in lagu wareegaysto xafiisyada ciidamada iyo xafiisyada federaalka iyadoo dadka lagu dacweynayo mas'uuliyiinta deegaanka lagu dacweynayo waxaalihii shacabku ay dalbanayeen ee u baahnaayeen oo ay ka mid tahay Soomaalinimadu oo ay ka mid tahay in dulmiga la diido iyo halganku oo ay ka mid tahay diinta iyo akhlaaqda wanaagsan in la taageero waxaalahaas iyadoo dadka lagu dacweynayo shabakad u badneed dad maaragtay ka faa'iiday dhiigii shacabka intii maartay dhiigu daadinayay tacadiyadu socdeen iyagu qandaraaso iyo miisaaniyad iyo lacag ka heli jiray oo uu haddana u tafaxaytay inay sii wataan dhaqanadii noocaas ahaa yaa ololayaal fara badan oo ka dhana xukuumadda ka wadi Addis Ababa iyo dhulkaas iyaga oo si khaldan u soo dhigayay xaqaa'iqa ka jira deegaanka waxaa maanta shacabka ugu bashaareynaa in dhammaan isku dayada noocaas ahaa si buuxda looga adkaaday shacabkuna maanta laga bilaabo uu fili doono in isbedel dhab ah oo dhinac walba dhinac siyaasadeed mid amni iyo mid horumarineedba loo jihaysan doono waxaan ugu baaqaynaa mar kale dadka noocaas ee akhlaaq xumada iyo dhaqan xumada wiiqaysa midnimada ummadda Soomaaliyeed
ka shaqeynaya inay ka waantoobaan haddii ay ka waantoobi waayaan waxa mas'uuliyad naga saaran tahay in si isbedelkan uu taabagalo talaabooyinka loo baahnaa ka qaadano taana waxaan rabaa inaan shacabka u cadeyno inaan dib looga waaban doonin waxaan aad iyo aad u mahadnaqaynaa shacabka deegaanka Soomaalida oo si buuxda isu garab taagay xukuumadda muujiyeen wadannimo aan hore loo arag iyo isku duubni aad iyo runtii maartay loogu farxo wax kasto caqabado dhacana waxa laga faa'iidooyin ba ka yimaada marka iska qabsiga hadda jira waxaan ka faa'iidnay in dadkeenu ku midoobaan aragtidoodana ku muujiyaan inayna maanta u baahnayn in dib loo noqdo oo dadka lagu maartay dhaqamadii jawaasisnimada iyo wixii macnaha aan lahayn ee ahaa in dadka lagu caayo Soomaalidu aaminsan yahay diin buu aaminsan yahay inay xalihii noocaas ah maanta ay noqdaan waxyaalo maartay ceeb ka noqdo shacabkeenu ay diidaan aad iyo aad ugu faraxsanahay guud ahaan inahaas ayaa ka soo baxay maalmaha soo socda insha Allah waxaan soo bandhigi doonaa qorshayaasha laga qaatay dhinaca dib u yegelidda iyo dib u habeynta xisbiga iyo dhinaca maartay mashaariicda iyo horumarka labadaba iyo dhanka nabadgelyada waad mahadsantiin soo dhaweyntii ballaaran ee shacabka deegaanku ay ku qaabileen madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar oo muddo aad u kooban hawlo shaqo uga maqnaa deegaanka ayaa waxa ku dhehnayd kalsooni iyo kalgacayl shacab